tani markii ay soo baxeen telefishinada iyo raadiyaha sharaxaadda iyo fahamka ballaaran ee ciyaaraha kubadda cagta ayaa noqday mid ku habboon daawashada. dad badan oo daawada kubadda cagta ayaa aad ula dhacay habtabinta wariyaasha, halka qaarna ay aad u xiiseeyaan falaqeynta ciyaaraha. waxay u muujiyaan dhacdooyinka waaweyn ee ka dhaca kubadda cagta sida tartamada waaweyn ee qaramada iyo horyaalada kala duwan ee adduunka laga ciyaaro. haddaba warbixintan waxaan ku eegi doonaa 10 tabiye ee ugu fiican ciyaaraha kubadda cagta. qaar ayaa ciyaaraha ka baxay ee ku jira liiskan, halka qaarna ay weli ay saaxadda ay saaran yihiin. lambarka 10aad sheekadan waxaa ku jira Aaron Dyche. waa mid ka mid ah tabiyaashii ugu caansanaa ama ugu waaweynaa ee soo maray ciyaaraha kubadda cagta. sidoo kale wuxuu ka faalloon jiray ama tabi jiray ciyaaraha feerka. Dyche wuxuu ka mid ahaa 4 wariye ee ugu sareeya janalka Sky Sports iyo Big Four, isaga iyo waliba Martin Tyler. Dyche wuxuu leeyahay khibrad weyn oo dhanka tabinta ciyaaraha, waxaana uu soo tabiyay finaalo koob adduun tiro 3 jeer ah, sidoo kale ciyaaraha Champions League iyo horyaalka Ingiriiska ee Premier League. inkastoo uu hore ula soo shaqeeyay BBC Radio iyo Sky Sports, Dyche wuxuu sidoo kale u soo shaqeeyay ESPN. waa mid ka mid ah tabiyaashii ugu waaweynaa ee soo maray kubadda cagta. liiskan wuxuu ka soo galay booska 10aad. lambarka 9aad liiskan waxaa kaga jira John Champion. taageerayaasha Premier League waxay aad u tabeen tabiyihii qabiirka ahaa ee John Champion, kaasoo u guuray dalka Mareykanka ka hor xilli ciyaareedka 2019-2020. Champion waxa uu leeyahay waaya aragnimo ballaaran oo kala duwan xirfadiisa tabinta ciyaaraha, wuxuuna la soo shaqeeyay BBC, ITV iyo TV kale. Champion waxaa si weyn loogu xasuustaa TV-ga ITV. ciyaarihii koobka adduunka 2010, ciyaarihii koobka adduunka 2014 ayuu ka mid ahaa dadka sida uga soo shaqeeyay. 2006 iyo 2018 ayuu sidoo kale ka soo shaqeeyay. Jane Beglin. Jane waa mid ka mid ah tabiyaashii aadka loogu jeclaa ee soo maray horyaalka Premier League. wuxuu sidoo kale ahaa ciyaaryahan ka hor inta uusan ku biirin tabiyaasha aadka loogu jecel yahay. ninka reer Ireland ayaa ahaa ciyaaryahan difaac bidix ka ciyaara uma soo ciyaaray Liverpool iyo Leeds United. Jane waxaa aad loogu jeclaystay habtabintiisii falaqeynta wadatay iyo inuusan ka bixin dhexdhexaadnimadiisa markay ciyaarayaan kooxihii uu soo ciyaaray, taasoo ahayd inuu ku kasbaday taageerayaal aad u badan oo aad u jeclaystay habtabintiisa. lambarka 7aad waxaa ku jira Andy Gray. mid ka mid ah dadka aadka loogu jecel yahay ayuu asna yahay tabinta ciyaaraha kubadda cagta marka ay timaado. waxa uu ahaa ciyaaryahan sidoo kale u soo ciyaaray kooxda Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, Everton, West Brom Albion. wuxuu iska joojiyay shaqada kadib markii ay soo baxeen waxyaabo la xiriira fadeexad. aragtidaasna waxa uu ku helay malaayiin daawadayaal ah. Gray wuxuu caan ku ahaa dhowr waxyaabood oo ay ku jiraan xirfadiisa tabinta, laakiin mar walba wuxuu ciyaarta ku soo bandhigi jiray si aan eex lahayn oo xog badan leh. qaabka uu ciyaarta u sharixi jiray ayaa soo jiitay taageerayaal badan. Clyde Tildesley waa mid ka mid ah dadka aadka ciyaaraha asna u tabiya ee liiska ku jira booska 6aad ayuu ku jira, waana khabiir dhinaca ciyaaraha. ITV ayuu muddo ka tirsanaa. Tildesley ayaa inta badan ka faalloonaya ciyaaraha Champions League. wuxuu tabiye ka ahaa ama uu ka soo muuqday 17 finaal oo Champions League oo ay ku jiraan FA Cup-ka. wuxuu sidoo kale ka soo muuqday EA Sports game gacmeedka FIFA. intaa waxaa dheer, Tildesley waxa uu ku muteystay abaalmarino badan waxqabadkiisii. Tildesley ayaa waqti cajiib ah ku qaatay TV-yada kala ITV iyo TV-ga CBC Sports, waqtigan uu ilaa iminka uu ka mid yahay. lambarka 5aad sheekadan waxaa ku jira Alan Smith, laacibkii hore ee kooxaha Arsenal iyo Leicester City. Alan Smith ayaa ka mid ahaa tabiyaasha xirfadeysan ee waqti dheer ku soo qaatay heerka ugu sareeya tabinta. wuxuu caan ku ahaa inuu ka ciyaaro weerarka, sidoo kale dhowr jeer ayuu u saftay xulka qaranka England. Smith ayaa si weyn loogu yaqaanay koobka adduunka ee isbedelka weyn uu ku sameeyay. Andy Gray ayaa saaxiibkiisii Martin Tyler waxay sidoo kale ka soo wada muuqdeen taxanaha EA Sports ee FIFA. habka uu Smith wax ugu sheegay waa mid ka mid ah waxyaabaha ay aadka u jeclaysteen taageerayaasha badan iyo waliba tabintiisii murtida ku laran. Smith wuxuu si joogto ah ula shaqeynayay Sky Sports waqtigiisii ugu badan. booska 4aad sheekadan waxaa ku jira Peter Drury. mid ka mid ah tabiyaasha ugu caansan qarnigan ee aadka loogu jecel yahay tabintiisii kubadda cagta ee ugu fiican xilligan ayuu ku jira. waxa uu aad uga faaloodaa ama loogu bartay inuu ka faaloodo ciyaaraha Manchester Derby.
waqtiyadii ugu dambeeyay isaga iyo saaxiibadiisii sida John Becklin iyo Martin Taylor, laakiin wuxuu muujiyay inuu yahay mid ka mid ah tabiyaashii ugu fiicnaa marka ay timaado in wax laga sheego dhacdooyinka socda ee cajiibka ah. Peter wuxuu u soo maray waqtiyo qurux badan, wuxuu ku soo qaatay intooda badan Premier League, halka sidoo kale uu caan ku ahaa tabinta qaar ka mid ah ciyaaraha Champions League iyo tartamada heerka caalami ee koobka adduunka ee FIFA. waxaa inta badan taageerayaasha ay ku ixtiraamaan oraahdiisii aan eexadka lahayn, waxaase u guura hadda Mareykanka telefishinka laga leeyahay. Martin Taylor, mid ka mid ah tabiyaashii ugu daada weynaa ee muddo dheer ka shaqeynaya kubadda cagta Ingiriiska, liiska wuxuu ka soo galay booska saddexaad. Martin Taylor oo hadda 77 sano jir ah ayaa weli ah tabiye sare waqti xaadirkan, wuxuu markaasi aad u wada shaqeeyay muddo dheer Peter Drury, John Becklin, Alan Smith isagoo kasbaday sumcadda kubadda cagta Ingiriiska. Martin ayaa sidoo kale kaaliyo markaasi heerka shanaad ee Woking FC koox la yiraahdo ka soo shaqeeyay Premier League, Portsmouth, Sky Sports, Fox Australia. tabintiisii cajiibka ahayd waxaa lagu xasan doonaa goolkii waqtigii dambe uu ka dhaliyay Sergio Aguero kooxda Queen's Park Rangers xilciyaareedka 2011-2012, goolkaas oo ahaa mid ay koobka ugu guuleysatay Manchester City. sidoo kale lagu xasan doonaa saxiixii koowaad ee United-ka ee Anthony Martial markii uu goolka uu ka dhaliyay kooxda lagu magacaabo Liverpool, markaas oo ay u tabiyay ama oraahdii uu Martin Taylor dadka la wadaagay. baaska labaad waxaa ku jira John Motson. John Motson ayaa bilaabay shaqada tabinta ciyaaraha 1971. waa mid ka mid ah tabiyaasha kubadda cagta ee ugu sareeya, isagoo soo tabiyay ku dhawaad 200,000 oo ciyaarood oo isugu jira TV iyo radio. inkastoo uu ka fadhiistay tabinta 2008, Motson wuxuu la soo shaqeeyay BBC. wuxuu geeriyooday sanadkii 2023 February aan ka soo gudubnay. lambarka koowaad sheekadan waxaa ka soo galay Brian Moore. haliga Brian Moore waxa uu dhashay sanadkii 1932. wuxuu tabiyay 9 koob adduun oo FIFA ah, in ka badan 20 koob oo finaal xirfadiisii muddada dheer uu ku soo jiray. wuxuu sidoo kale qabtay qaybta tabinta England ee ku guuleysatay. wuxuu sidoo kale ahaa tabiyihii koobkii adduunka England ee ku guuleystay 1966. waxa uu ku dhintay da'da 69 sano sanadkii 2001. Moore waxaa hadii jeer lagu xasan doonaa inuu yahay tabiyihii ugu horeeyay ee tabiyay ciyaaraha gudaha Ingiriiska. wuxuu in badan ka soo shaqeeyay BBC, ITV Sports. waqtigiisii Moore wuxuu cadaro ka dhigay telefishinka iyo raadiyaha intuu ku guda jiray xirfadiisii tabinta. daawade tabiyeed ugu jeceshahay ciyaaraha kubadda cagta xilligan iyo xilligii horeba mahadsanidin.